waxaan ku darayaa oo bariyahan dambe loo lamba ani ka jiray in laga hadlana waa waajib diini oo ina saaran duul u banbaxay xumaanta inay ummadda ku faafiyaan iyo duul kale oo le ummadda ha xumaynina war ilaahayna ka cabsada ilaahayna ku xidhnaada maanta waa adduun barina waa aakhiro waxaa jira ahlu baadilku mar kasta way taagan yihiin waqti kasta iyo goor kasta iyo goob kasta muslimkana waxaa la rabaa inuu wax badan iska weydiiyo oo uu fiirsado oo aanay jibba qaadin waxaanaynu wada ognay baryahan dambe inay jiraan xarumo loo furay ummadda in lagu majareer habaabiyo iyo rag ka soo horjeeda markaynu u xaglino ragga ka soo horjeeda waxaa ugu horeeya ninkaynu ka wada dheregsanayna xal la xidhay cabdimaalik muuse coldoon oo xalay dawladdu xidhay ayaa isaguna saf ah safka kalena waa dad iyaga doonaya ummadda inay haleeyaan xumaanna ku wadaan waa marka koobaade waxa la isku hayaa war xumaantan iyo faaxishadan iyo gaalnimadan ummadda lagu faafinayo daaya iyaguna waxay leeyihiin gaalnimo ma jirto innagiyo shacabkii haddaynu u garsoorno waa marka koobaade ubadkeennii maanta inay gaaloobeen oo hargeysa gaala joogtaa waa markhaati madoon culimmadeennaa tilmaantay guddida wanaag faristaa tilmaantay annagaa naloo yeedhay oo la yidhi gabadhan iyo inantan la hadla waanu ka dhaadhicin weynay islaamkii iyo dacwaddii annagaa naloo geeyey haddii la leeyahay ma jirto meelo ubadka lagu gaalaysiiyaa war way jiraan xarumay leeyihin oo goobay leeyihin oo waa buux xaggay ka yimaadeen waaye kuwaanu aragnay ay culimmadu arkeen ee guddida wanaag faristu aragtay intaanu coldoor arag xaggay ka yimaadeen anshaxuma ma jirtaa haa haddaad xarumaha tagto rag iyo dumar baa dheeha isu haya oo isku dhegan inantaada iyo walaasha iyo gabadhaada miyaad jeceshay nin ajaaniba inuu dheega ku qabto ila ilaah baynu ka cabsanaynaa waa maya waa marka koobaade kale maxkamadaha iyo jeelasha dadka ku jira xaggay ka yimaadeen waxaa hubaala oo buuxa oo maxkamadaha ka buuxa rag dhalinyaro ah oo yidhi qoomul luud baanu nahay qoomkii nabiyullaahi luud wixii lagu halaagay baanu samaynaa oo maxkamaduhu xukumeen xaggay ka yimaadeen dhalinyaro ka baxday baa jeelasha ku xidhan xaggay ka yimaadeen haddii la leeyahay isagaa wax arkaya wuxuu arkaya inagu arki mayno kuwaasi xaggay ka yimaadeen waa markhaati madoon laba in lala doodo oo la qanciyo qofku xataa hadduu qaldan yahay dood baa lagu saxaa maya waan ku xanibayaa oo waan ku xidhayaa xal maaha taas inuu qofku kusii firdhada mooyaane sax maaha hargeysa waxaa joogaa oo aan jimci hore ka aamusaan isiri bal iska daa gabadha diiday xadiiska nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee tidhi nin iyo gabadh isqaba oo guur sax oo xalaali ku dhacay ninku hadduu gabadhiisa qasbo waa zina ta tidhi ee ku dhiiratay ayaa hargeysa joogta marba hudheel bay ku qabataa maxaadiro marba hudheel bay ku qabataa mu'tamar iyo shir dumarkay la shirtaa xadiiska nabigay ku dheeleelaysaa leedahay xadiiskaasi ma jiro nabigaa sidaa yidhi ma qaadanayno gabadhaasi lama xidhinayada kolba meel bay ka degtaa kolba hudheel bay ka cashaysaa laakiin kii lahaa ka daayana xadhig baa loogu jawaabay sax maaha waxayna anfacayana maaha waxaynu ka aamusi karnana maaha waayo ninkani cabdimaalik dee qof uma hadlayo qoysna uma hadlayo wuxuu u hadlayaa waa qaran waa ummad waa innaga waa hagaaga oo hanuuna oo horumara qabriya qiyaamaa jira ilaahay ka cabsada faaxishada iska daaya taa weeye ta kale waxaan la yaabay meeday dimuqraadiyaddii la lahaa qofku waa xurriyatul qowl wuxuu doonuu cabiri karaa ma la jiifiyana bannaanba la joojiyana bannaanba markaad adigu ha hadlinba anna aan hadlo dee sax maaha haddii dimuqraadiyadi ka jirto qofku wuxuu leeyahay xurriyatul qowl la dood la niqaash maya waan ku xanibayaa god baan kugu ridayaa sax maaha waxaan farayaa dadka cuqaasha ah iyo culummada cabdimaalik wuxuu hayaa shaqadeennii in la xidho maaha in la xanibo maaha inaynu ka hadalno weeyeen idhaahno war arrinkan aynu icdilu huwa aqrabu litaqwa cadaalad baa la rabaa inayn waynu dhexdhexaadinayna waxaan maxaa ka jira aynu eegno dhalinyaradan jeelasha ka buuxa ha la eego laakiin in noocaa lagu xadgudbo oo la xidhaa dembi weeye nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ittaqu dulma fa ina dulma dulumaatun yowma alqiyaama dulmiga iska jira dulmigu waa mugdi maalinta qiyaame nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam mar kale wuxuu yidhi
بابان معجلان عقوبتهما لبا دنبي عقوبة إيا دنبي قيلة ويسودك دقان في الدنيا البغي والظلم وبغي جاء والظلم جاء وسودك دقيا إيا والعقوق لبدا والده حق لكم نقضه والظلم وي قف إن الحلول لحنبا صح ماها علماء هكاكعين أو هكاكعين عقاش والدولة دبحها النقطة يعني عدل صفني وحين لين يتشور كداي شعبكو إيو والدينتا إيو علماء إيو مشايخ دون هادر يمانية أضياشو ورني كان عبد مالك دعدو هذا يا إنك فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وقوم كي نبي الله صالح نمبا هل دون دبي قوم كي يدوال هلاقي وهي قوم كرال بي كاهاين ظلمي إيا قفكي إيا قردردي تلتي ولا ليال إلهي أينو كعبصنو دلن يردين أينو أبقنو جامعتها هدي ليدي جامعتها قبل با كتشلتا دينتا كريسمس كيفا فيسا oo waa caan oo youtube-day ka buuxdaa maxaa keenaya in la yiraahdo ubadkeena loo gacan galiyo oo loo dhiibaadaan ku dhiibay magaalo kale la waayay midna ogow ardayga iyo macalinku way isa saameeyaan ardaygu waa macalinkiisa koobiye weeye inagu malihin waxba la biinaya laakiin markaynu si caadi ah u wada hadlayno gabadh daaciyada oo christmaska faafinaysa ilmo yar iyo gabadh yar oo maran marka loo dhiibo maxaa ka dhalanaya waxa ka dhalanaya diinteyda inay ay ku shubto ka dhaadhiciso ayaa ka dhalanaya ardayga iyo macalinka cilaaqa ka dhaxaysa xiriir baa ka dhaxeeya ilaahay aynu ka cabsano dawladuna xal ma xarigo qofku ku sii fogaada munaafiqii khawaariji aynu garanaynay ayaa la niqaashay saxaabadii joogta nabiga ka hadlay khawaarijta qoomka layda oo yiri laaya ka fogaada ka dheeraada ayaa hadana saxaabadu la niqaashayeen oo la hadlayeen oo dacwadu geynayeen dadka nooca ah aynu ka dhidhino dulmi weey hadaynaan ka hadal oo aynaan ka soo horjeesan oo aanay wadaadadu ka kicin oo aanay culimadu ka kicin ceeb iyo falxuma ka noqoy ka imanaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala si degdeg Allah u soo daayay si degdeg Allah u soo daayay xumaan oo dhan Allahayna weydaari xumaan oo dhan Allahayna weydaari tad islaaxo hanuuno hagaaga Allahayna ga dhigo طريقة في عن الله هينا مريو طريقة في عن الله هينا مريو حق الله هينو معاني باطلون الله هينا ويداري باطلون الله هينا ويداري قال فهم الدين تا نبي عليه الصلاة والسلام الله هينا قديقو قبرك يا قيامها سفي عن وفضل الله سبحانه وتعالى هينو إلهامي اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين